arrimaha siyaasadda iyo dowlad dhiska walaalayaal dalkan taariikh dowlad dhis ayuu leeyahay khaasatan 24 sano ee u dambeysay laga soo bilaabo markii jamhuuriyadda saddexaad la soo aasaasay ee laga yimiday carta intii ka dambeysay doorasha dalka ka dhaceysay si nabad ah oo aan colaad iyo dagaal ku jirin ayaa xukunka la isaga bedelayo oo la isaga wareejinayay intaasi waa in adduunyada in badan oo kamid ah nalamida aanay haysan adduunyada meelo badan oo kamid ah doorasho kasta iyo isbedel kasta oo dhaco dagaal iyo colaad iyo dhiiga ku daato waa la isku dilaa waa la isku diraa alxamdulillaah annaga Soomaali haddaan nahay ma ay dhicin 2000 iyo maxaan ku raadaay 12 ma dhicin 2017 ma dhicin 2022 ma dhicin hadda wixii ka dambeeyna insha Allah ma dhici doonto waa ka sii hagaagi doontaa laakiin muhiimadda doorasho ay leedahay waa maxay fursad in dadka loo siiyo hoggaanka iyagu ay ku kalsoon yihiin in ay soo doortaan oo qofku uu fursad u helo cali iyo caashe iyo maxamed iyo maxaan ku yiraahdaa cambaro waa kala dooranaya cali ay fiican caasha ay fiican inuu dhihi karo taasi muddo waa naga maqneeday wakaalasho iyo wakiilad iyo dad wakiilka ah ayaa maxaan ku yiraahdaa sameynay iyada la sideeduna wada socoto oo soo kordhaysa maalin walba ayay ahayd 135 oday khiyaarteen ahayd odayaasheen ahayd hawsha noo bilaabay baarlamaankeedii ugu horeeyay noo soo xulay muddadii ku meel gaarka ahayd shaqo fiican ay ahayd oo la qabtay dadkii inta isu yimaadeen maanta maxaan sameey karnaa kana sameey karnaa aan sameeyno waa la sameeyay waa lagu soo caanamaalay 2017 bilowgeedii waxaan dhahnay meeshii horena ma joogi karnaa aan soconno oo duruufaha cusub oo dalku u maraya aan ka jawaabno oo ahayday dalkii inuu nidaamkii federaalka ka hana qaaday dowlad goboleedyadii dhismeen xukunkii baahay hoos loo dadejiyay hal darajo ugu yaraan sidaas daraaddeed marka meeshii hore ma joogi karno oo ma dhihi karno odayaashii aan u noqonno ee dadkii aan noo soo magacaabaan waa inaan duruufahaas cusub ee soo kordhay waa inaan la jaan qaadno oo aan maxaan ku raadahay waxa ay fursadaas dadka ay ka faa'iideystaan xukun baarlamaanka la qaybiyay waa la kala qaaday xamara baarlamaanka hor lagu doortay dowlad goboleedyada loo kala qaybiyay colaad iyo dagaal ayadoo aanay ka dhicin dowlad goboleed kasta doorasho ka dhacday dad wakiilo ka ah dadkii oo tiro 135 odayna ka badan ayaa codaysay 14,800 oo qof ayaa codaysay 15,000 ku dhawaad qof aa codaysay oo Soomaali ah oo kala dooratay dad jufadii hoose ha ahaadaan qabiilkoodii ha ahaadaan reerkoodii ha ahaadaan laakiin meesha waxaa soo istaagay dad la kala doorto oo intaa wakiilada ahayd oo wakiil ahaan bulshada looga soo xulay ay kala doortaan waa soo marnay waa ku soo caanamaalay baarlamaankii kan ka horeeyay ayaa sidaas ku dhashay ku shaqeeyay 2021 war meeshii hore maan joognaa maya aan wax ku darno dadkii kontonkii kowda ahaayeen 100 iyo laga dhigay iyo kow intii hore u codaysay laba jibaarkeeda codaysay codayn doorasho markasta ciladana waa leedahay tabashooyina waa leedahay ka eed sheegashana waa leedahay marne doorasho 100% sax ah ilaa doorashadu waa fikir iyo talo bini aadan maamulayo wixii bini aadan maamulayana mar walba nusqaan kama dhama iyo in ay cilada leeyihiin laakiin haddana doorashadaas dhacday ee labadaas jeer soo dhacday sheegay marka laga yimaado odayaashii la iskuma dilin la iskuma laaynin waagii Soomaaliya dimuqraadiyad waa la dhihi jiray oo 60meeyadii xorriyadda aan qaadanay oo Soomaalinimadu intaan ay ka xoog badneed oo dadku dareenkooda oo isku duubnaa doorashooyinkii dhacayay dagaal ka dhici jiray 69kii doorashadii dhacday waa la garanayaa dagaal ka dhacay ciidan dawladeed lagu laayay dad shacab ah lagu laayay meel doorasho ka dhacaysay la gubay iyo wixii taagnaayo dhan laakiin nasiib wanaag dadku waa soo kordheen maankoodu waa soo kordhay colaadana waa ka daaleen dadka birigaas waxa laga yaabaa inaan colaadi kama dhicin labadii jeer oo is dooran shil hal iyo laba iyo meel qaarkood waa ka dhacdhaceen laakiin colaad
kama dhicin dadku waxay dhihi jireen colaad qabiil ah dhici doonto qabiilkaa isdili doono qabiilka dhexdiisa isgeli doono kama ayan dhicin 2000 iyo tii u dambaysa 2022 saasay nagu dhaaftay hadda marka duruufteenni waxbaa iska bedelay duruufaha dalka waxbaa iska bedelay dhul badanaa xoroobay mid kale hadda lagu sii socdaa oo sii xoroobaya haddii alla yiraa dadkii Soomaaliyeed ee shalay nimankaasi khawaarijta ay dul fadhiyeen dul hoganayeen oo ay dhibka ku hayeen cabsida ku hayeen maanta intii hore in badan oo kamida yaas ha dadaa wili noogu dhiman oo aan u taaganahay insha Allah inaan ka xoreyno ayagana ay ka xoroobaan laakiin dad badan iyo deegaano badan ayaa ka banax banaanaaday khawaarijtii duruufaheennii waa taxassun yacni horuma wanaagaa yimiday wanaagaas ayaan rabnaa siyaasadana inay la jaan qaado oo dadkaasi ay tagaan meeshii la isku dooranayo oo ay doortaan qofka deegaankaasi dantay u arkaan haddii ay tahay midka deegaanka hoose jooga ee dowladda hoose iyo shu'uunta degmada maamulaayo iyo haddii ay tahay midka ay u soo dirsanayaan inuu wakiil uga noqdo muxuu ahay danaha qaranka iyo masaalixda qaranka iyo meesha Soomaali ay talada isugu geysanayso intaba waana suurtagal waa samayn karnaa 135 haddaan ka nimiday oon 15 kun nimiday oon maalintii ku xigtay 30 kun nimiday maanta waxaa suurtagala dhowr milyan inay codeeyaan weli waxaa laga yaabaa intii aan rabnay meeshii aan rabnay dadkii aan rabnay inay wada dadka Soomaaliyeed oo dhan inay codeeyaan ama dadka dibadda jiro diasporada xataa Soomaalida ha codeeyaan inaan dhahno weli maynaan gaarin waa qodob ma tabaraan guurnaa mase taakaan guurnaa uu yidhi ninkii taaka iskuma hubno ee tabar aan guurno maanta waxa aan samayn karno ayaan samaynaynaa mar walba baryahaas horena wixii aan samayn karnay ayaa la soo sameeyey maantana wixii aan samayn karno waxa ugu fiican oo suurtagalka ah yaan samayn doonaa dalkeennu siyaasadda meeshaasuu ka joogaa shuruucdii iyo nidaamkii cayaarta doorashada lagu geli lahay waa noo samaysan yihiin laakiin ayaguna sidoo kale waxay rabaan in la waafajiyo cahdigan cusub iyo duruuftan cusub sharciga doorashada waa yaallaa sharciga xisbiyada waa yaallaa sharciga guddiga doorashada waa yaallaa laakiin duruufihiina waa isbedeleen waqtigiina waa isbedeleen dadkii mas-uuliyiinta nooga ahaa qaar in badan oo kamidana waqtigaa ka dhacay so inaan dib u eegno oo aan marka shuruucdii dib u habeno ilaa shuruucdu waa ognahay aayada munazala ma ahayne waxaan maslaxadeenna iyo danaheenna aan u samaysanay ahaayeen inaan dib u eegis marka lagu sameeyo oo ayagana la waafajiyo duruufta dhabta ee maanta jirto dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dowladda federaalka ah waxay rabtaa in fursad loo siiyo in ay qof iyo cod aado waa la daahay waa laga dhacay waa la yeelay dad baa meel iska joogayo kuwaa meel ka dhacayo kuwaas waxaasoo dhamme waa wax shaqaa taallo shaqadaasaa qabasho rabto inaan ku wada mashquulno shaqadaas waaye nidaamkii inaan ku mashquulno xeerarkii iyo wixii ku habboonay aan dhammaystirno maxaan ku yidhaahdaa dadkii aan muxuu ahay wanaag iyo waxa soo socda u sheegno laakiin haddii aan u daarno muxuu ahay cabsi war haddii shalay dad yar ay go-aan gaarayeen ay noo shaqaysay maanta dad badan ay go-aan gaarayaan sidii shalay ay noogu shaqaysay si ka fiican ay noogu shaqaynay bas waxaan u baahanaa inaan aamino dalka doorashuu aadaya waa qof iyo cod dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa codaynaya intiiba la gaari karo oo fursad loo helo waa la wada gaarayaa 100% ma lihin laakiin intii hore dadka noo soo dooro jirtay in ka badan aad iyo aad uga badan ayaa fursad helaysa ay ku codayso ku kala doorto dadka taas mabda'aas waa arintaas waa naga mabda ka noqosho male dib uga dhicid iyo maxaan ku raayay ka tanasulidna male dadka Soomaaliyeed mustawa kastoo joogan meel kastoo joogan waqtiga la joogo iyo maanta horumarka dalka uu soo sameeyay suurtagal ma aha in uu xukumo nin aanay dooranin ayaga mabda'eenu wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed waxa u talinayo nin ay cod ugu rideen sanduuq hadduu ku xumaadana ayaga iskale hadduu u fiicnaadana ayaga iskale hadduu ku xumaado
هالسجن وقت للسي وقت كيس هالسجن هسكب بدل بري هذا هو ناكسن هذا بري هسوع عشرين هو سعودي وأقول في عام وقبر في عام وكو عشرين هذا لكن وحاربا يعني ضدك الله خلدن شعبك الصوماليات وحاربا أنا أشياء يعني بين الإدين شيء يعني بين الإدين شيء ما دعي كرتو أنت كذا نما جاك طلونا نما وروالا سو تلوواي شالك وجرا سو تلوواي حكم كحوجا لجور هذه قرية لجور هذه ديجا لود هذه ولجوه الواي إنا وضع هذا اللون هالشيء مركان قارني بقول صدق نشان أضي الرهب اللي يرادو وجاسك عدنا سلطانك عدنا جراتك عدنا ملاك عدنا أيام دهني ترى ده نو جار وكوه الشيء وحي أو نو جارين وأقبلني فيري ما أنت مركي كده بيسنا سيدوكله ما أنت نسيدوكله waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ku heshiyaan shuruucda iyo nidaamka inay ku heshiyaan horaan u sheegay nin xoog badan dalkan kama tali karo sharci xoog badan ka tali karo shuruucda aan hagaajino aan xoojino aan ku kalsoonaano aan aamino cabsida aan yarayno kuwa muxuu dadka baabul khoofka iyo cabsida iyo ushido aan raalli ahaa aan dhahno oo meel walba taagan waxaan rabaa arintaas dadka Soomaaliyeed in ay sidaa u arkaan oo ay maxaan ku raad ka yimaadaan cabsida iyo shakiga la gelinayo ma jiro waa soconaynaa mid kasta waqti kasta wixii noo suurta galaan qabanaynaa doorashadaasna Ilaahay idankiis waa hirgelinaynaa wayna hirgelay yaan leedii kaga been sheegin oo propaganda leedii kaga furan oo cunug yar oo maxaan ku raadaa irsaaqada ka gashay inuu wax xun la sheegay yaanay aadin iska daaya waa soconnaa waa soo soconnay meeshaan waxaan ku gaarnay dadka Soomaaliyeed rabitaankooda haddana rabitaankooda ayaan ku sii wadina taas meeshaas inaan ku dhaafaan rabaa waxaan rabaa ayadana yani dabcan duruufaha dalkeena ku jira dhaqaale xumo dalkan waa ka jira la isku hayo laakiin xaaladeena hoos u dhacday oo baahidiya badatay waa been waa run dad ay dhab ka tahay oo faqri ah waa jira dalkeenuna dad aad u tiro badan ayaa muxuu ahay faqri jira taas marka dhinaca kale dhaqaalaha marka si systematic loo xisaabiyo GDP-ga waxa loo yaqaano lagu cabiro dhaqaalaha ummadaha iyo dawladaha boqolkiiba 50 in ka badan oo dhaqaaleena kor u kacay ama boqolkiiba 100 in ku dhow aan dhaho 4.2 mara 2 halkaas iyo 3 wax u dhow uu joogi jiray wuuna sii socdaa standardka dhaqaalaha lagu cabiro caalamka lagu cabiro waa suuqa marka dhex gashidood fiirisidna suuqa waa ka inta magaalada intiinan hadda meesha fadhida ee akhyaarta ah magaalada meeqa dhismaa ka socota mashaariic dhismo oo waaweyn magaaladan Muqdisho hadaan midaal ka soo qaado meeqa ka socota mashruuc kasto dhisma oo socdaahay soo wiil Soomaaliyeed kama shaqeeyo kii wax shahaadi jiray kii lacagta shabaabku u aruuri jiray oo aruuri waayay kii waxadi jiray oo xatooyadii ay ka soo yaraatay kii beenta iyo propagandada ee meel inuu fadhiisto ninna ama ninna caaybasada ku heli jiray waxa shiidsan kuwaas waay khayr Allah idisiyo waxaan leeyahay taga dhismaha ee ka qayb gala magaalada Muqdisho bas maaha magaalo kasta fiiri baydhaba dhismaha ka socdo baraawo dhismaha ka socdo kismaayo wadooyin jidad iyo dhismaha ka socdo baydhaba sidoo kale wadooyin baraawo ka socdaan dhuusa mareebay ka socdaan jowhar meel walba oo dalka kamida mashaariic ka socdo aan shalay jirin shalay ma jirin mashaariicdaas wadooyinkaas ma dhismaynin daarahaas iyo dhulkaas iyo real estate ka maanta laga hadlaayo ma dhismaynin ma jirin nin walba guri yar oo vinti 120 lagu dhufto 15 oo yar oo 4 qol oo ka dhisanaya markii dhismo la dhisa jiray maantana meeqa dabaqa dhismayso 20 30 guri ah dabaqa dhismayo apartments 90 iyo jarjar apartment oo isku xiran ayaa dhismaya dad Soomaaliyeed ka shaqeeyo oo ka xamaash ganacsato Soomaaliyeed ka shaqeeyo iskara ka shaqeeyo wax walba magaalooyinkaas banaanka jira dawlad goboleedyada dhan sidaas horumarku uga socda oo wadooyin dhismayo oo maxaan ku raadayay dhul dad Soomaaliyeed ka shaqeynaya siyaasadda politics-ka lacagaha sida raqiiska oo sahlan lagu helo oo aan la shaqeysanin ama sida qaab darrada ah lagu helo ama shabaab laga helo ama xatooyo xoolo dadweynaha lagu helo waayo waxa la waayo inta dhiman waa la sii waayna kuwaas hadii alla yiraahdo
nin shabaab u shaqeeyna shabaab ku noolaan maayo wadkiisu cunuha ku noolaaduha mid tuug ana sidoo kale noolaan maayo waa daba soconnaa waana ka celinaynaa in muxuu ahay hantida ummadda inuu dhaco uu cuno dayrada waa laga fiican yahay aan jirin alxamdulilaah dalkeennu maanta meeshii aan rabnay ma joogo laakiin meeshii shalay meel ka fiican u jooga sanadihii hore ee lasoo dhaafay 2010kii iyo wixii kasii dambeeyey mar walba marka ka dambaysaahe waa sii kacayay dalkeennu waa sii soconayay waana dhaqaaluhuna waa sii horumarayay soomaaliya maanta waxay joogtaa meel lasoo aamino oo dad badani ay keensadaan maalgashi ay ugu yimaadaan dadka soomaaliyed waxaan u rahaa dhowaan dowladdu waxay soo cilaami doontaa mashaariic waaweyn oo maalgashi ah oo waaweyn oo aan ahayn daar yaroo la dhisay iyo muxuu ah waddo yaroo la sameeyay aan ka waaweyn waxaas waxay tilmaam u yihiin kalsooni caalamka uu ku soo kalsoonaanayo Soomaaliya horay ayaan u sheegay caalamka wixii aan ku lahayn ama aan ka rabnay ama aan xuquuq ahaan u waa ka helo hayna dadka Soomaaliyeed waxa annaga aan isku leenahay aan iska helno oo annagu aan is aamino oo annagu aan isku kalsoonaano oo annagu aan dawladnimada ku kalsoonaano yaana dawladnimada ka baqin ninkii colaada shalay ku dhiiranay maanta wuxuu ka baqaa nabadii warkii shalay colaada ka baqayo oo dibka ku haysayo maanta nabadda ku dhiiro banaanku soo istaag waana loo soo istaagay dhalinyarada Soomaaliyeed khaasatan aad iyo aad ayaan u amaanayaa oo aan u bogaadinayaa dhiiranaanta ay muujiyaan ma aha kuwa frontiga jooga oo dhiigoodii iyo naftoodii hore kaliya laakiin kuwa magaalooyinka jooga xataa inay dhiiradaan oo codkooda ay kor u qaadaan waa horumar gabdhaha Soomaaliyeed si khaas ah waliba sharafay leeyihiin hooyooyin dhan ayaa meel u fadhiya maalin iyo cawo iyo maalin in sidii ay u taageeri lahayn u kaalmay lahaayeen ciidanka qalabka sida oo lacag aan budget dawlad laga bixin oo ay u tageen webel adig intaan keen shirkad hebel intaan keen adigu intaan keen ay yireen inta isku dara deeq la siiyo ciidamada muxuu ahaa dagaalka ku jira frontiga jira ku sameeyay raashin qalalan hu dhar wax walba ugu badan waa gabdho taariikhdeena horena waa ognaa xorriyadda maga qaadanaynana gabdhuhu meesha ay ka soo mareen war gabdhuhu maanta ku daysay mudan yihiin ragga waxaystana gabdhaha ha kaalmeeyo dhalinyaraduna wadadaas ha marto aan muxuu ahay dalka u wada istaagno aan ka shaqeyno mas'uuliyiinta iyo inta mas'uuliyadda ay saaran tahay oo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maxaan ku raadayay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo baarlamaanada dawlad goboleedyada iyo xukuumadda dhammaan ay ka mid yihiin waxaan leenahay war maanta dalka meel fiican oo maraa aan u istaagno waqti badan ma haysano waqti yaraan haysanaa waqti aan iska daanshoonno ma qabno 34 sanaan maraynaa aan gaarno meel fiican waa gaari karnaa aqoontii waa haynaa dhaqaalihii waa haynaa dadnimadii iyo fahamkii waa haynaa bas shakiga iyo cabsida aan yarayna leh inaan kala shakino iyo inaan cabsanno oo waxba war nin wax qaada kara male waxa soo haray maanta dalka anaa madaxweyne ka ah beenlow nin dhintay iyo nin dheer oo marqaati u qabsadaa dadka Soomaaliyeed aan marqaati u qabsanaa iyo inta mas'uuliyiinta maanta wali joogta ee xilalka haysa qaarkood baarlamaanka federaalka ku jirta maanta qaarkood ama muxuu ahay jooga shalay aan madaxweyne ahay ayada oo hay'adaha dawladda oo dhan ay raali ka yihiin inaan 2 sano oo muddo kororsi ku darsano ayaan diiday maslaxa uma arkayna doorashaan galay doorashadii waa la iiga roonaaday waa la iga cod badiyay waa ogol ma sugin xataa wareeg ugu dambeeyay intii laga gaaray xataa mugaan halka trendiga doorashada u socdo maxaa loo sii waqti wax loo sii qasaarina meesha inta tagaan galeer galay see maanta qof iigu xantaa ninkaan meesha inuu iska joogo rabaa war shalayna ma joogin maantana ma raba laana inaan joogi karin aan aaminsanahay inaan joogi kara ma aaminsan inaan xaq u lahayn anaan raalli ahaanshaha ummadda Soomaaliyeed ayaan talada ku joogaa raalli ahaanshooda la'aantood talada lama qof joogi karto malaha maxamed saad barraa joogi lahay kuwa ku xogaa joogi lahay kuwa badan oo iga horeeya joogi lahay waqtiga la siiyay waqtigiyaan ku dadaalaynaa inay wuxuu ku yimaadaan hana lagala shaqeeyo inta la islu gooyo oo la iskala shaqeyn waayo hadhow yaana la isku eedaynin waqtiga waa dhamaaday wax lama qabo waa qaba karnaa waqtiga noo haraa nugu filan waa nugu filan yahay
national levelka framework nationalka ayaana muhiim ah dowladda federaalka ah mandatekeedu inta uu jiro waxa ka soo haro dhan way fix gareyn kartaa wayna hagaajin kartaa laakiin iyadu haddii uu mandate ka dhaco ka bacdi ama markuu si bariya ka dhiman yihiin ka bacdi aan wax hagaajina hadday dhahdo dee markaas waa khaldan tahay sanadkii koowaad oon talada joognay ayaan ku baaqnay dalka in doorasho qof iyo codana laga sameeyo dastuurkana la dhammaystiro intii aan ku taagannahay baarlamaankuna shaqo fiicanna way qabteen haddana weli waa u taagan yihiin inay shaqo fiican qabtaan waana ka wada shaqaynay tii hore tanna waa ka wada shaqaynaynaa dad fikir ka duwan qaba waa jiraa laakiin dee baarlamaanka wakiiladii dadka soomaaliyeed baarlamaanka 330 qofood ayaa ah ayaga talada ugu dambaysa tala badanaa la leeyahay xukuumadda tala leh maamul goboleedyada tala leh talada waa badan tahay laakiin talada kama dambaysta ah waxaa iskale baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka federaalka soomaaliya na hal mid uu go'aano ku gaara cod laysma maquuniyo laysma dilo laysma waa la codeeyaa ninkii codkaasi aan raacsadeen fikir ka duwan wuu qabi karaa laakiin haddii lagaa bato waa raacay waana qaacidada marka waxaan rajaynaynaa in amuruu noo fududaan baarlamaanka shaqo fiican aad iyo aad fiican taramkii hore qabtay taramkaana inta dhiman inuu dhammaystiro ayaan rajaynaynaa haddii alla yiraa doorashadan aan usii dhowaano waxa muhiimadahaasay u kala leeyihiin hawshu siday hortaminta iyo muhiimadaha u kala leedahayna inaan u kala hormarinaan rabnaa dhib ma jiro dalka aan maanta ku jirnaay aan dowladna u nahay shacabna u nahay meesha uu maraayo iyo jihada uu u jeedaahi meel laga dayraya ma ahan wax waa noo dhiman yihiin waxaa noo dhimanna dadaalkeenna ayaan kula imaanaynaa ilaahayna waa kaashanaynaa